halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaaban ku FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka ciwaankeegu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khayrtana dhageysatay waa 3 abriil saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 Ogowa. wararkan idaacadan subaxnimo idinku haynana waxaa kamid ah COVID-19 iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. hay'adaha gargaarka oo ka dardaar warinaya duruufta adeega caafimaad ee South Sudan. Soomaalida Ingiriiska ku dhaqan oo doonaya inay tiro koobaan dadka coronavirus ka dilay. in la xaqiijiyo Soomaalida dhabta ah oo dhimatay waxay u baahan tahay inagu inaynu xil iska saarno oo aruurino inta qof oo ina ka dhintay. haddii kale waxay dhexgelayaan numberka la daabacayo oo ah dadka black and ethnic minority-ga ah. Soomaalida ku nool Koonfur Afrika oo ka dayrinaya amarro cusub oo xukuumadda dalkaasi soo rogtay. soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xaaji Cabdullaahi Axmed Nagaashiina oo idinla socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal. waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Cabdifataax Ibraahim Maxamed Cagayare. Cabdifataax. mahadsanid Axmed. madaxweyne Donald Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu saxiixi doono amar madaxweyne oo si ku meel gaar ah loogu hakinayo soo galootiga in ay yimaadaan waddanka Mareykanka. waxa uu sheegay in go'aankaas uu gaaray kadib weerarka ugu yeeray inuu soo qaaday cadawga aan la arkayn taas oo ah magaca ugu yeero xanuunka coronavirus iyo in lagu dhowro shaqooyinka ay hayaan muwaadiniinta Mareykanka. wax faahfaahin oo intaasi dheer kuma uusan darin fariintaas oo xalay xilli dambe uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. dhanka kale waxa markii ugu horeysay taariikhda saliidda qayriinka ee waddanka Mareykanka ay qiimo la'aan ku soo dhacday xilli qiimaha lagu kala iibsado uu eber ka hoos maray kadib markii ay aad hoos ugu dhacday dadkii saliiddaasi qayriinka coronavirus awadii. waxa iyana la waayay baa leeyahay goobihii shidaalkaasi lagu kaydin lahaa mar haddii ganacsatadii iibsan jirtay ee faraha kala baxeen inay shidaal ka qaataan. shirkadda Facebook-gana waxa ay mamnuucday xafladaha oo u muuqanaya in dadku ay ku xadgudbayaan siyaasadaha in dadku ay kala fogaadaan. waxa ay barta Facebook ka saartay xayisiimo dadka ugu yeeraya inay ka qayb qaataan baaqa in talaabooyinka xadidaadda lagu soo rogay la soo afjaro kuwaas oo ka dhici lahaa California, New Jersey iyo Nebraska. dhanka kalena dhowr gobol oo ku yaal koonfurta waddanka Mareykanka ayaa waxa ay wadaan qaabkii ay u dhici lahaayeen qaabkii ay u dabcin lahaayeen xayiraadaha ay dadka ku soo rogeen walow qaybo ka mid ah dalkaas weli uu ku sii faafayo xanuunka coronavirus. xukuumad qaran oo wadaaga ayaa waxaa laga dhisay Israa'iil. qaybta hore ee heshiiskan oo socon doona 3 sannadood ayaa Benjamin Netanyahu waxa uu sii ahaanayaa ra'iisul wasaaraha walow uu wajahayo dacwad musuqmaasuqa. markaas kadibna waxa uu xilka ku wareejin doonaa ninka ay aadka isku hayeen ee ah afhayeenka aqalka Knesset ee baarlamaanka Israa'iil Benny Gantz. madaxweynaha Mexico Andres Manuel López Obrador ayaa waxa uu sheegay burcadda dambiilayaasha inay joojiyaan cunnada ay dadka siinayaan xilli lagu guda jiro dhibaatada coronavirus taa beddelkeedana ay soo afjaraan buu yidhi qulqulatooyinka ay wadaan. axaddii waxaa dalkaas lagu dilay 105 qof taas oo ah tiradii ugu badneed ee maalin qura dalkaas sanadkan lagu dilo. ugu dambeynna dacwad oogaha guud ee waddanka Brazil ayaa waxa uu maxkamadda ugu sarreysa dalkaas weydiistay in uu gal baaritaan u furo si inuu soo baaro isu soo bax dimuqraadiyadda looga soo horjeeday oo madaxweyne Jair Bolsonaro uu kula hadlay taageerayaashiisa. isu soo baxan oo axaddii lagu qabtay magaalada caasimadda ee Brasilia ayuu madaxweynuhu booriyey in dib loo soo celiyo xukunka militariga. warkiina waa naga inta Axmed Cagayare oo warkii subaxnimo inoo marinayay uu kaasi ha dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. waa tahay dhegeystayaal aan ku bilaabay wararka dunida ugu waaweyn waxa kamid ah kuwa cudurka coronavirus iyo COVID-19 ee bal haatan xaaladda Soomaaliya halka ay marayso iyo kororka oo la sheegayo dadka bukaanka ee ku dhacay inay tiradoodu korodhay. waxa goor dhaweydii faahfaahiyay wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan.
axmed ibraahim waad mahadsan tahay warbixintii ugu dambeysay ee cudurka covid-19 iyo soomaaliya saraakiisha wasaaradda caafimaadku waxay xalay sheegeen in tiradii ugu badnayd ee cudurkaasi maalin keliya uu ku dhaco in laga diiwaangeliyey soomaaliya tan iyo markii cudurkaasi soomaaliya laga sheegay bartamihii bishii hore ee mars waxaa la sheegay in 73 qof cudurkaasi laga helay 24 saac ee lasoo dhaafay 51 ka mid ah dadkaasi waa rag 22 kalena waa dumar sidoo kale warbixinta saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in hal qofii ee bogsaday oo cudurka uu horey ugu dhacay sidoo kalena waxaa la soo wariyey hal qof in uu cudurka u dhintay tirada guud ee ilaa hadda Soomaaliya la xaqiijiyay in uu cudurku ku dhacay waxay hadda gaaraysaa 237 waana tiro maalinba maalinta ka dambaysa soo kordhaysay oo isi soo taraysay aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim maxamed aadan ayuu kaasi ahaa wariyaha BBC magaalada muqdisho oo warbixinta kooban inaga siinayay halka ay marayso xaaladda cudurka covid-19 ee Soomaaliya iyo xogtii ugu dambeysay ay wasaaradda caafimaadku ka soo saartay wixii ka soo kordhana dhageystayaal idaacadaha iyaga dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah awoodda la hiidmo bal haatan Kenya suuqa weyn ee Islii ee magaalada Nairobi ku yaala ayaa ganacsigii ka socday la joojiyay duruufaha coronavirus awgii iyo Soomaalida oo lagu dhaliilay inaanay qaadanin amarada ka soo baxa wasaaradda caafimaadka Kenya arrintaasi ayaa waxay saameyn taban ku yeelatay waratada qaadama dhergaanka ah ee quutalyoomka ka heli jiray suuqa Cabdishakuur Casoowe ayaa warbixintan uga diyaariyay duruufta dadka haysata suuqa Islii waa meel ay u soo shaqo tagi jireen dad badan si ay noloshooda uga dabaraan saamaynta ay xiridda suuqa keentay ayay ganacsatadu siyaabo kala duwan u wajahayaan ganacsatada ayaa u kala qaybsanta kuwa dukaamo waaweyn leh iyo kuwo warato ah oo bannaanka wax ku iibiya ganacsatada yaryar ee waratada ah ayay saamaynta ugu ba'an ka soo gaartay xiridda suuqa Islii waxaa u badan dumar haysta carruur ay keligood koriyaan waxa ka soo gala suuqaasina noloshooda ku dabari jiray Xalimo Maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka suuqa Islii ganacsiyada ku haystay waxayna iminka sheegaysaa in xiritaanka suuqaasi ay dhibaato weyn kala kulantay waxay intaas ku dartay in lacagta ay ka hesho suuqa ay ku korin jirtay carruur yaryar sidoo kalena kirada gurigeeda ay isaga bixin jirtay anaga saamaynta ay nagu yeelato bishan hadda bandowga la qaaday oo macnaha bandowgna la saaray oo 21 beri war marba kasii moogta oo magaciisa oo waxaan coronavirus iyo waxaan sheegay markaasayto horta waxa anaga shaqo la maxaa noogu dambeysay markii magaci coronavirus la sheegay dadkii ay guryaha kala galeen alxamdulillah handana waa wala iska wacnay markii handana bandowgan kale oo tuulaashka imaanayna la saaray ayay handana xaaladda sii xumaatay de waa iska ogtahay dee dad hooyadina ilmo iska farsanayaan ahayn oo ciyaal u joogaan oo ciyaalka maadaama iskuuli dugsi aysan jirin ay waxay cunaan bay rabaan wixii subax habeenkii aan soo shaqeyno unbaa un subaxina magaciisa ciyaalka inay cunayeen marka dee dhibka culaysadan uu iska jiraa haddana wallaahi been kuma sheegayay maanta wax anaga islaam in wax noo soo gargaarmo wax hadda oo macnaha ilaahay xaggiisa inooga imaadaan mo wax hadda maanta shaqo la dhaha iyo wax jira oo ilaahay unta ma laha aniga 5 ciyaalaan qabaa yaan aan leehay marka 5 ciyaalka iskuulkooda iyo dugsigooda iyo kiraha guriga iyo magaciisa raashinka way naga dabari jirtay alxamdulillah intaas wixii maanta aan soo shaqaysano baa naga dabari haddii maanta aan suuq soo waayno haddii waxba aan la gelin aysan jirin qof inta u tagnaa waxaan dhehnayo biri inuu siyaal arkaayo bal isii lacag aan ciyaalka la aada Faadumo Cusmaan waa hooyo kale oo ka mid ah ganacsatada waratada ah ee xaafadda Islii waxayna BBC-da uga warrantay saamaynta ay nolosha qoyskeeda ku yeelatay xiritaanka suuqa maamooyin Soomaaliya iska ahayn dadka iska waratada oo banaanka casharada iska aadaan ahayn saameyn xoog leh nagu yeeshay maadaama ilmaan bii laga raadinayay dugsiga aga bixinayay iskuul aga bixinayay maxaa la dhigay qaar aan nagu jirin oo istaal laga bixinayay wixii oo dhanba saameyn nagu yeeshay suuqii waa la xiray suuqa bacshirada way xumaatay daal xirin bacshirada iska xumaatay suuqii way xirmeen wixii arada way iska halaawday meesha aan biilka ka dhiganay way naga xirmatay marka dhibaato weyn oo taas camal noo keenay waxa cudurkaan iyo suuqaha la xiray iyo marka ciyaal aaba aan lahayn haysta oo wili qaarkood iga xanuunsan yihiin marka ciyaalkaas dugsigooda iskuulkooda tiradooda waxooda dhan meesha ka maaran jiray Faadumo iyo Xalimo labaduba cabsidooda ugu weyn waxay tahay in suuqaasi uu sii xirnaado gaar ahaan 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa markaasi oo ay lacago badan heli jireen ما شاء الله وافقنا جرنا وشقيسين جرنا بيلك إلما إيدود كل ما شان كيل جرنا طبعا كوجودهم بيسرا بلانكا لعد سجنا هيل جرنا إلما بيل قاضة إيدود واحد من شان كماري سنتنا كيل جرنا هذا هذه سوق الحرين هذا إلهي بانك سوينا حقي سجى إلهي خير سوينا إن شاء الله كل زائد سامين بين أولادين فسوا وقت أكون إستعملين وين سوق صح كيلين أكون إستعملين إيه وقت العيد معناه طبعا كدنبا والله سامين وين بينوية لنا دي مجلس أول فرنسا فسوا حد دعمة
islaam inuu wax noo soo diro oo dadka aan la hadalna ma og annaga waxayna accounting maameel looma yaalin qof dad accounti lemanahin waxaan ahayn 500 maanta aan soo helna cabada gurigaan la imaanayni wixii aan maanta magaciisa daan soo waayna qof islaamka u tagnaan ka soo deelsanayno dhayna biribaan ku siinaa dadka asaga hadduu guri ku soo aruursaday dee xaaladda sidaysa waa iska garan kartaa qofka aqliga wuu garanayaa cudurka covid-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka waxayna xayiraadaha la soo rogay hakad ku keeneen habsameeyo socodka nolosha dalkan Kenya waxaa cudurkan ilaa hadda laga helay 281 qof waxaana u dhintay 14 qof aad buu mahadsan yahay cabdishakuur oo warbixintaasi inoo diyaariyey haddaba dhegaystayaal war xalay ay goorfiidkii soo saareen guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa waxay ku sheegeen in suuqa maanta dib loo furayo waxaana warkaa shaaciyey xogayaha guud ee guddiga ganacsatada suuqaas Cumar Xuseen waa tahay dhegaystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda haddaba iyaguna ka soo dhiibanaya arrinkaasi waxaana ka mid ah Bashiir Cabdi Maxamuud Casoowe oo jooga magaalada Muqdisho wuxuu yidhi xanuunka coronavirus ee kusii kordhaya dunida iyo bulshadii Soomaalida ee aan maqlayn awaamiirta bahda caafimaadku runtii waa arrin caqabadeeda leh waxaase habboon in dadka Soomaalidu ay wax maqlaan oo xanuunkaa loo yareeyo ayuu yidhi waa tahay dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee BBC-da saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:11 BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay wararkii coronavirus-kaynu ku jirnaa dhegaystayaal South Sudan ayaa hay-adaha gargaarkii ka dardaar warinayaan xaaladda liidata ee adeega caafimaad ee dalkaasi waxaanay sheegeen in uu gebi ahaantiiba afka goosan doono haddii cudurka fayrasku ku sii fido dalkaasi ilaa haatan waxaa la xaqiijiyey inuu dalka 4 qof ku dhacay cudurka COVID-19 South Sudan waxay ka mid tahay dalalka ugu saboolsan dunida oo adeega caafimaad la odhan karo waa mid aan jirinba maadaama uu dalkaas sanado badan dagaala ka socdeen hay-adaha gargaarku waxay haatan ururinayaan cunto biyo iyo dawooyin ay ugu talagaleen inay wax kaga qabtaan haddiiba xaaladdu ay aad faraha uga sii baxdo Emmanuel Gunsa ayaa warbixinta nooga diyaariyey سيف لجوبا وعملت سيف لأسرة كله وعملت سيف لأصدقائك عملت سيف لناس الساوث سودان كله وعملت سيف caasimada suudaanta koonfureed ayay hay-adaha ku sugan waxa ay wadaan wacyigelin caafimaad iyadoo la adeegsanayo gaari nooca laangruusalka ah oo dusha looga rakibay qalabka codbaahiyeyaasha kaas oo bixinaya ogeysiis dadka loogu sheegayo muhiimadda ay leedahay in dadka ay guryahooda ku nagaadaan ayna ku dadaalaan kala fogaanshiyaha waa qayb ka mid ah fariimaha wacyigelinta oo ah oloole ay xariga ka wada jareen dowladda iyo hay-adaha gargaarka oo iska kaashanaya sidii loo moosi lahaa faafitaanka fayraska corona ee gidaarada soo jebinaya balse cudurkani ayaa mar horeba cugxandhigtay gaarayna dalkani oo ka mid ah kuwa Afrika ugu itaaliita dhinacyo badan oo adeegyada caafimaadka ay ka mid yihiin magaalada Juba dad yar ayaa isugu soo xumay agagaarka gaarigan wacyigelinta wada waxa ayna daawanayaan shaqaalaha caafimaadka oo tusaya sida ugu wanaagsan ee gacmaha loogu dhaqdo saabuunta balse fariintani muhiimka ayaa noqon karta farqiga u dhaxeeya geerida iyo nolosha James Reynolds waa madaxa hay'adda caalamiga ICRC ee ka howlgasha Suudaanta Koonfureed a crucial point in the sense that there is a revitalized peace agreement. So there's a lot of hope. waxaan ku sugannahay xaalad muhiima waxaan dareemaynaa inuu jiro heshiis nabadeed oo dib loo soo nooleeyey waxaana jiro rajo badan oo ah inuu dalka South Sudan uu dhinac isu raaci doono oo uu dalku ka bixi doono colaadda iyo dagaalada marka cudurka safmarka COVID-19 ee dalka soo gaadhay wuxuu khatar ku yahay geedi socodka nabadeed waxaan isku dayaynaa inaan muhiimad gaar ah siino taageeridda habnololeedka bulshada iyo goobaha bixiya adeega caafimaadka waxaan sidoo kale doonaynaa inaan dib u bilowno wax soo saarka beeraha maadaama ay jirto damaanad la'aan dhinaca cuntada inkastoo ay weli jirto khatarta coronavirus uu ku keenayo South Sudan with the key operations we're running in country despite the threat that coronavirus brings to South Sudan 6 sano oo dalkani dagaal ragaadiyay ayaa adeega caafimaadka wuxuu noqday mid aan caga badan ku taagnayn intii yareed ay jirtayna ay dagaalada galaafteen ku dhawaad kala bar shacabka ku dhaqan Suudaanta Koonfureed ma haystaan adeeg caafimaad oo hufan
waxaa dalkani ka jira gabaabsi dhanka shaqaalaha iyo qalabka caafimaadka islamarkaasina qaar badan oo ka mida dadka suudaanta koonfureed xitaa ma heli karaan biyo nadiif ah iyo qalabka fayadhowrka. wakhtigan mudnaantu waxa ay tahay in la faafiyo fariinta looga hortagi karo guud ahaan bulshada loona sheego dadka muhiimadda ay leedahay in gacmaha lagu dhaqdo saabuun guud ahaan fariimaha muhiimka ah. kadib waxaan rajaynaynaa in faafidda cudurka ay hoos u dhacdo. dhanka kale ee aan ka shaqaynayno ayaa ah xarumaha caafimaadka ee dalka. waxaan u malaynayaa in fariinta muhiimka ay tahay sidii looga hortagi lahaa cudurka iyo sidii loo xakamayn lahaa iyo weliba sidii xarumahani cid waliba oo gelaysa loo baari lahaa heerkulka jirkooda iyo sidii ay si wanaagsan gacmaha ugu dhaqan lahaayeen loona joogtayn lahaa kala fogaanshiyaha bulshada. Has to wash their hands properly, and then once they're in to try and maintain that social distancing. kiisaskii ugu horreeyey ee cudurka coronavirus ayaa laga helay dalka suudaanta koonfureed bishani abriil, gaar ahaan caasimadda Juba iyo magaalada kale ee Torid. balse walaaca la qaba ayaa ah khatarta uu cudurkani COVID-19 ku keeni karo ku dhowaad 2 milyan oo gudaha dalkani ku barakacay, kuwaasi oo intooda badan ku nool xerooyin buuxdhaafay ee cooshadaha iyo buulalka daruurinta leh ku hoyda, halkaas oo adeegyada dadweynaha ay yihiin kuwa bartooda lagu diimo. madaxweyne Salva Kiir ayaa sheegay in dowladda ay la shaqaynayso dalalka caalamka ee ologala ah si gacan looga geysto xal u helidda dhibaatada maarawaaga ee corona. The Ministry of Health Rapid Response Teams have collected 50 samples. wasaaradda caafimaadka kooxda u qaabilsan jawaabaha degdega ah ayaa waxa ay dhiig ka qaadeen 50 qof, islamarkaana waxay baadigoob ugu jiraan dhammaan dadkii xiriirka la sameeyey bukaanada cudurka laga helay. sidaasi daraaddeed COVID-19 waxa uu nala joogaa Juba iyo Torit, war inaan ka hortagnaa inuusan ku sii faafin qeybaha kale ee dalka. codkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii Manuel Gunsa oo Cabdinaasir Saxan Saxo ina la socodsiinayay. waa tahay bal haatanna xagga iyo Koonfur Afrika. dowladda Koonfur Afrika ayaa kordhisay muddada xayiraadda dhaqdhaqaaqa dadweynaha ee lagu xakameynayo fiditaanka coronavirus. wararka dalka ka imanaya ayaa tibaaxaya in dhaqaalihii dalka iyo ganacsigiiba ay arrintaasi sii dhibaataynayso. Soomaali badan ayaa ku nool dalkaasi haddaba oo ka ganacsada Koonfur Afrika, kana mid ah ganacsatada ay arrintani saamaysay. cabdi qays ashkir oo ka mid ah ganacsatadaas ayaa Axmed Badar oo khadka telefoonka kula xidhiidhay. waxa uu weydiiyey haddii ay jiraan wax iyaga u gaara oo saameyna oo amarka dowladdu ku yeeshay. wallaahi walaata ganacsiga saameynta oo ku yeeshay aad iyo aad ugu leedahay saameyn weyn oo ku yeeshay. saameyntaasna waxaa ka mid ah ganacsigii oo hoos u dhacay iyo dadkii oo waxba awoodin ee waxay ku gataan awoodin. marka qofka hadduu wax ku gato uusan awoodin, hadda waa dareemi kartaa oo saameyn weyna dhaqaalihii ku imaanaya. marka ganacsi isku socod midna ma jiro. walaalow dadkuna wax ma gadan karaan oo waxay wax ku gataan ma haystaan kuwii soo baxa. haddee saameynta dhaqaalaha hadda ay ku yeelatay annaga dhankeennan hadda waxaa waaye hadda qofka hadduusan waxba haysanin maxaa wax lagaa gadanaa. saameynta ugu badan oo hadda annaga nagu haysata waxay tahay dadku waa dad xoogsata ah, waa dad muruqmaala, waa dad waxay ahaayeen wixii maalintii soo shaqaystaan wax nooga gata. hadda qofka hadduusan bannaan aadi karin maalintiina uusan soo shaqaysan sidee buu wax kaa gadanaa? waxba ma haystee waa gacan marane. bal waxaad tusaale iga siisaa xilliyadii hore oo kale waxgadashada ama ganacsiga sida uu ahaa marka xaaladda iminka taagan loo barbardhigo waxay idiin soo geli jiray xilligaasi iyo hadda waxa idiin soo galaa. wallaahi walaalow iskuma dhigmaan, lianna xilligaas waxaan shaqay jirnay ilaa 4 saac oo habeennimaan shaqay jirnay. subaxii 5na waa furi jirnay oo 5 subaxnimaan furi jirnay. haddee 5 markii la furo 10ka habeennimana la xiro waa dareemi kartaa suuq aad u fiicanaa jiro. marka hadeertaana waxaa la xiraa waa 6na waa la furaya. marka dibudhac weynna ku yimid, qofkii wax ma haysto, waqtigii waa la soo gaabiyey, ilaahay kuma samadiidee. dadku waxay ahaayeen dad ayagu oo iska muruqmaalahay ahaayeen. marka allaha barakeeya xaalkaas xaal waxa waaye oo cabsideeda lawa. wallaahi walaalow Axmed saameyn weyn ay ku yeelatay. saameynta ay ku yeelatana waxaa ka mid ah haddee markii hore dhaqaalaha waddanka u diraynay, waddanka dhaqaalihii markii loo dirayo waddanka lockdown la geliyey oo waddanka macnaha xaalad degdega la geliyey. hadda doolarkii ma shaqaynayo, wuu kacay oo 2,000 oo ran uu marayaa. marka awalkii horena shaqadu way kala socotay oo markaasaa lagu maareyn jiray, xaaladda saas baa lagu maareyn jiray. hadda haddii shaqadii aan kala socon, waddankii oo xiran, adigii aan bixi karin,
ilaahay kuma sama diidee dadkii aadan caawin karin waa dareemi kartaa waa xaalad iska aad iyo aad iyo aad iyo aad u adag toddobaadyada soo socda xayiraadda waa ay sii socon doontaa maxaad filanaysaan dhanka ganacsiga axmed wax fiican lama fila doono haddii labadan toddobaad ee soo socota ay dowladdu ku sii darto dadku waxay wax ku gataan ma haystaan mana awoodaan oo dadku haddeertaan waktigan aan kula hadlayna ayagoo baahan noo imaanayaan as waxay leeyihiin war xataa caawa keliya dabka ha naloo shido marka waxaad u malaynaysaa markii wax lagu sii daro ma lagu sii dhex joogayo meeshan joogis ma jirto warkaas waxay ku xiran tahay qof walba sida uu wixiisa meel uu badbaadala u geysa lahay ama uga badbaadsan lahay lagu tabaabushaysanaa maahane wixii ka dambeeya 2 weeks after 2 weeks wixii ka dambeeya weji fiican meeshan kama soo socdo waxay u badan tahay un nin walba iyo raganimadiisa iyo sida uu xeeladaysan karo waa gartay sidoo kale waxaa jirtay intii lagu jiray xilligan xayiraadda in dhacyo boob badan ay jireen oo dukaamo loo geystay arrimahaasi bal ka waran Soomaalida saameynta ay ku yeelatay wallahi saameyn weyn oo ku yeeshay oo hadda aniga nin aan aad iyo saaxiib u nahay oo haddana tuulada aan isla deganahay nin wanaagsan ah 3 bari ka hor dukaankiisii meel Diviton lagu boobay waa dareemi kartaa dukaan almost $40,000 $30,000 ku furan Axmedow cagta la mariyay sida maanta lagu soo celsho oo dib loo abaabulo waa dareemi kartaa waa xaalad aad iyo aad u adag marka qof walba markuu wuxuu ku taamaya ama ku tahninayaa waxay tahay war inta ilaahay gacantaada hadda ay wax ku jiraan oo hadda aad tala iyo macnaha ay kaa go'an aa leedahay sida aad wax ku furdaamin karto ama wax ku xeeladay karto ku xeeladay marka after 2 weeks ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaraa dhacaya laakiin weji fiican ma filayn cabdi qays ashkir ayuu kaasi ahaa oo u waramayay axmed badar kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh warbixinnadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com waa tahay dalka ingiriiska ayaa warar ku tibaaxayaan in haatan uun la dhaaday dhibaatada cudurka covid-19 ku yeeshay dadka madow iyo bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay ee soomaaliduna ka midka tahay haddaba si dhibaatooyinka haysta jaaliyadda soomaalida wax looga qabto ayaa ururada bulshada ee soomaalidu waxay shir lagaga qaybgelayay internetka oo maqal iyo muuqaal ah ku yeesheen london kaasoo ujeedooyinkiisa ay ka mid ahaayeen bal hadda in la tiro koobo dadka soomaalida ah ee cudurkan u dhintay mawlid xaaji cabdi ayaa ka waramaya wadahadalkan oo lagu yeeshay muuqaalka internetka ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka socday in ka badan 40 urur oo Soomaaliyeed dadka u dhaqaaqa arrimaha Soomaalida xubno ka mid ah golayaasha dawladaha hoose ee dalkan UK waxaan uu ka dambeeyay qayladaan iyo dadaal jawaab u ahaa dhibaatada cudurka COVID-19 uu ku yeeshay bulshada dalkani gaar ahaan dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay jawaahir daahir waa gudoomiyaha golaha qurba joogta Soomaaliyeed kana mid ah dadka u dhaqaaqa arrimaha Soomaalida shirka ujeedadiisa maanta wuxuu ahaa in la isku xiro oo la abaabulo codadka maarkan hogaanka u ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan UK si ay jawaab wadajir uga bixiyaan cudurkan COVID-19 waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahayd in la dhaqangeliyo maarkano soo saarid talooyin maaragtay loogu talagalay dadka siyaasadda dejiya ku taxalluqa maaragtay COVID-19 iyo sidii maarkano dadka Soomaalida ah ee hogaanku ah maarkano jaaliyadda Soomaaliyeed ay iskula shaqayn lahaayeen ayagoo maarkano u soo jeesanaya si dadkooda u caawin lahaayeen tirada dadka soo galootiga gaar ahaan dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay ee ku nool gobolada England iyo Wales ee dalkan iyo boqortooyada UK ayaa lagu sheegaa 14% laakiin xogta ay BBC-du helaysa ayaa muujinaysa in 35% dadka sida ba'an ula ildaran cudurka COVID-19 ay yihiin bulshooyinkaasi iyadoo dhammaan 10 dhakhtar ee u dhintay cudurka COVID-19 ay yihiin bulshada
bulshada laga tirada badan yahay. sidaasi si la mid ah dad badan oo Soomaaliyeed ayaa cudurka ugu geeriyooday dalkani, waxaanse lahayn tirakoob si rasmi ah arrintaasi u muujinaya maadaama dadkaasi ay haystaan dhalashooyin dalal kala duwan. dowladda UK ayaa ku dhawaaqday inay baaritaan ku samayn doonto xogta dhimashada dadka madow iyo bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay. haddaba muxuu yahay qorshaha ururadan? Cabdi Muuse waa madaxa ururka saaxiibada geeska oo ka shaqeeya arrimaha Soomaalida. wuxuu ka hadlayaa sida ay muhiim u tahay in la helo xanaan lagu tirakoobo dadka Soomaalida ee cudurka ugu geeriyooday dalkani. baaritaankaas waa sax oo dowladdu way ku dhawaaqday. dhibaatada inaga inuu ku sugan Soomaali ahaana waxa weeye in ay dhib tahay in la xaqiijiyo nambarka sax oo ina ka dhintay. sababtuna waxay tahay dadka ina ka dhintay oo haystay dhalashooyin kala duwan. marka in la xaqiijiyo Soomaalida dhabta ah oo dhimatay waxay u baahan tahay inagu inaynu xil iska saarno oo aruurino inta qof oo ina ka dhintay. haddii kale waxay dhexgelayaan nambarka la daabacayo oo ah dadka black and ethnic minority-ga ah. si aan inagu u xaqiiqsanno haddaba dadka ina ka dhintay dowladdana markaa ugu geyno. haddii nambarkeenu aada u badan yahayna markaa aan kula doodi karno maxaanu u badannay, waa in la baaro, gooni loo baaro. si taa loo helo waxa ugu muhiimsan oo hadda annagu aan ka fikirnay ururka iyaga saaxiibada gees ama Friends of the Horn Foundation, waxaanu maanta bilownay inaanu samayno WhatsApp group kaasoo aan weydiinayno dadka Soomaalida ah oo dadku ka dhinteen in ay ku soo diraan magaca qofka, da'diisa, cusbitaalku ku dhintay, haddii uu cusbitaal ku dhintay, guri hadduu ku dhintay ama hadduu ku dhintay care home, intaba iyo taariikhda uu dhintay. waxa kaloo intaa la jira si loo ilaaliyo in aan cid aan qaraabo ama qofkii ugu dhowaa qof aan ahayn uusan u qorin magac qof uu yaqaanay, in la weydiin doono dadka inay soo diraan shahaadada dhimashada ee qofka la siiyo koobigeeda. intaa marka la aruuriyo dowladdu wax cad bay u baahan tahay. Soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa lagu qiyaasaa 350,000 ilaa 500,000 oo qof. waxaana jira dhibaatooyin badan oo gaar ah oo dadkaasi haysta sida waxbarashada, shaqooyinka, caafimaadka, guryaha, iyadoo ay jiraan qoysas badan oo ku nool guryo ciriiri ah. dhibaatooyinkaasi oo jira ayaa haddana waxaa dhibaato kale oo culus keenay cudurka koronaha, tiyo meesha ay ku jirto wacyigelinta iyo fariimaha caafimaadka oo dadka qaarkii aanay u qaadan sidii loo baahnaa. haddaba muxuu yahay qorshaha ururadani ee xal u helidda mushkuladahan? waa tan mar kale Jawaahir Daahir. qorshaha mustaqbalka waxa weeyaan in la gudbiyo report la soo saaray oo laga soo aruuriyay dhibaatooyinka maaragtay COVID-19 siduu u saameeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan UK, in ururadii meesha isugu yimid oo dhan ay taageersan yihiin, saxiyaasha ay ka mid yihiin, iyo in la dardargeliyo wada shaqaynta ka dhaxaysa ama ururada ahaada ama ha ahaadan maaragtay dadka hogaamiya ee jaaliyadaha Soomaaliyeed wada shaqayntooda. fayraska corona dadka ma kala sooco, laakiin cadeymo ayaa muujinaya inuu si gaar ah u saameeyay bulshooyinka qaar si ka badan kuwa kale. waxaase hubanti ah inay jirto baahi weyn oo loo qabo iskaashi iyo wada shaqayn wacyigelin ku lamaasan tahay oo arrintan looga gudbo wakhtigan adag. aad iyo aad buu mahadsan yahay Mawlid Xaaji Cabdi oo warbixintaasi London ka soo diray. dhegeystayaal, wararka dunidana waxa ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in uu joojin doono in dadka soo galeytiga ay soo galaan dalka Mareykanka si aanay uga qaadin buu yiri dadka Mareykanka shaqooyinkooda iyo saliidii ama shidaalkii oo suuqyadii Mareykanka biyaya shubanka ah. ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo gudoomiyaha baarlamaankuna heshiis ay gaadheen, taasna waxa ay sii jiri doontaa baa layidhi dowladda uu ka yahay Netanyahu ra'iisul wasaaruhu inay sii shaqayso maadaama oo heshiis wadaaga ay galeen. idaacaddii subaxnimo intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa. waxaynoo ballanaa haddii allaha wada la hidmo 2 duhurnimo inta ka horeysase waa dhammaantay oo dhammaantiin idinleh sidaas iyo nabadgelyo.